kale waxaa la sheegayaa warar ka imaanaya dalka Sacuudi Arabiya ilaa hadda laakiin lama hubo waxaa jiro war hordhac oo sheegayo in uu boqorkii dalkaasi haystay oo ku daayay macnaha aqruda buu fargada luuya sidoo dhaha saaxiibkan ajagtiisa daadaa waa shiir camalno dhanka aqru ma aragta dhanka show dhaca luuya laakiin we don't know lama hubo exaasa luuya dhanka show oo u dhaca luuya marka sukuur maaha wixii mataqaan soo kordho anaga idila socodsiin doono tan marka fiirso waxaan socdo maalmahan eebo waxa waaye calaamadihii qiyaamaha nabiga inuu sheego culimada Soomaaliyeed ma ka soo hadlaan calaamadihii qiyaamaha anima dhaha dagaal ka soo hadla waxaan rabaa bas inay ka soo hadlaan calaamadihii qiyaamaha nabiga inuu sheegay waxa hadda socdo soo dhaadhicu nabigeenu wuxuu yiri saddex maxamed asku qabsan doonto yiri kacbada saddex maxamed asku qabsan doonto kacbada saddexdoodna wuxuu dhaawaa ilmo boqor saddexdii maxamed bu diyaar wa marka waa arki doonaa meesha gaari doonto carabtad way kacday xaalka madaxweynuhu maruuya faransana wadamada galbeedka maxay soo saareen wadamada galbeedka waxay soo saareen qof allaalo qofkii taageero maska hadlo arintan oo Falastiin iyo Yahuuda eebow 5 sano xariga hadda ka hadasho arintan Falastiin iyo Yahuuda 5 sano xariga tahay iyo qaraama bixinaysa brother wala xataa hadalka ma banaan bixid iyo waxaas ma mudaharaad ma baraha bulshada xataa daad wax soo qorto masaad taageerto beertata saasal soo dhijiyay dadku waxa la gelinayo cub because waxa la diidan yahay muslimiinta inay kacaan waayo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Blinken Sacuudiga uu tagay Bahrain iyo Qatar iyo Imaaraadka uu tagay iyo Kuwait iyo Masar uu tagaya sababta ma taqaana maxay tahay ani idinkoos fahansanaho shacabkiina ma aragtay ku haaya shacabka ma aragtay ashuka ku aadamaan shacabka la maqlin shacabka la naga ilaalsha ku haaya taaka ma taqaana saara luuya ninka saas u bax wax kala maaha because shucuubta deganeed Ciraaq iyo Urdun iyo maxaa la hayay Sacuudiga waxay ku dhawaaqeen maleeshiyaadkaas meeshaas oo mataqaana oo shiicada raacsan waxay ku dhawaaqeen in ay la dagaalami doonaan Mareykanka xiriyaha Mareykanka oo ku leeyahay wadamada Khaliijka ay weerar doonaan marka Mareykanka wuxuu dhaw gudka biigu soo galay hadda marka Blinken wuxuu soo dawaafay wuxuu la wareegayo wadamada Khaliijka kuwaan wuxuu idinka saaxiibana nas fahansanahay waad ogahay marka shacabta maartay iga haaya taakada saara ashuka ku aadamaan kuwaan la maqli ma fahanti marka heerkaas maruusa waxaan wixii nabigeenu sheegay way soo dhawaatay balantu soo dhawaatay xalkama soo maraya marka ani idinka waaye maalmaha soo socota ano marqaati marka iyo wixii dhici doono arki doona sidaas waxaan leeyahay habeen wanaagsan